kulan maanta ay ku yeesheen hay'adda culimada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen deegaanka Tuqarraq oo ka tirsan gobolka Sool oo dhawaan uu dagaal ku kala dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland war-saxaafadeed ay soo saareen hay'adda culimada Soomaaliyeed waxa saxaafadda u akhriyay gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad. culimadu waxay u soo jeedinayaan madaxda Soomaaliland iyo Puntland inay khilaafkooda xalliyaan si nabad ah ilaahayna subxaanahu wa ta'ala uga baqaan daadinta dhiiga muslimiinta Soomaaliyeed ee colaadu ragaadisay una dhaganuglaadaan baaqyada nabadeed qaala ta'ala fattaqullaha wa aslihu dhaata baynakum. labo culimadu waxay ka digayaan cawaaqib xumada burburka iyo barakaca ka dhalanaya colaadaas ayadoo ay ka jiraan deegaanada duruufo adag loona baahan yahay in xoogga la saaro nabadeynta iyo horumarinta deegaankaas. culimadu waxay u soo jeedinayaan dhammaan dhinacyada ishaya in ay joojiyaan abaabulka habarwacashada iyo dhammaan ereyada xanafta leh ee sii horinaya colaada. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay dacuuha fa innaha muntina. afar waxaan soo jeedinaynaa in culimada salaadiinta abwaanada warbaahinta iyo dhammaan dadka ka shaqeeya samaha in ay isku hawlaan in si degdeg ah loogu dhawaaqo xabad joojin ciidamada la kala qaado lana qabto guddi nabadeyn. intaa ka bacdi isagana waxa saxaafadda la hadlay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Nuur Baaruud isagoo sheegay in ay xaraan tahay in la daadiyo dhiigga islaamka sidoo kalena baaq adag u diray dadka halkaas ku dagaalamaya يعني في dadka dagaalamaya haday xadiidkaas una xasuusnaan lahaayeen القاتل والمقتول في النار ka wax dilay iyo kala dilay labaduba naar bay galayaan. inta haday maskaxda ku hayn lahaayeen waxa ila tahay iimaan yarna uu ku jira xataa inay wax weyn ka qaban lahayd. kabaa'irta waaweyn ayay ku jirtaa dhiigga muslimka ee la daadinayo. qofka mu'minka ilaahay agtiisa xurmo weyn buu ku leeyahay. waa qof adoon ilaahay waa qof ilaahay u tukaday shanta waqti u tukada ilaahay magantiisa ku jira iyo badbaadintiisa ilaahay oo xeradiisa loo dhacay weeye marka qof muslina la dilayo marka waa arrin runtii aad u fool xun. maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere Star TV magaalada Muqdisho.